kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan caleemasaarkii Amiir Maxamuud Yuusuf Ciise. Amiir Maxamuud Yuusuf Ciise ayaa waxaa ku aanshubay oo caleemasaaray beesha reer Khalaf oo kamida beelaha degan gobolka Mudug. telefishinka ETN ayaa ka qayb galay waxaana kooxdii ka qayb gashay garwadeen u ahaa waliye Cabdirashiid Axmed عبدالرشيد كسلو استوديو كسمو قشفة ويا دورشدو على مسارك وحو كلا عادي دقمد اللي يراهدو دودن سيدات نوغسو تبيني سوراركا دودن وميل نوعي هورتا تينا نقول من قضبضا كلا وريا فارح عبد عاد بانكو مهنقا هي عادي شغالة كلا او ETN يدو قدهان بدودوين هرير بنتلان مقالة دودن وحي 8 كيلومتر وقوي قلبيت كحيتا مقالة قالك عي حرونتو قبل كمدو دودون ومقالو آدي عيد وناكسن عيدنا waxaa lagu tiriyaa inay ciid gaduud tahay waa magaalo soo jiida shawcan markaan halkaas tagnaa anaga kooxda kale ka socota koox ila socotay wariyaal ah oo ay kamid ahaa telefishinka ETN koox ka socotay si weyn bay noo soo jiidatay waxa ka dhacaysana cawqabow dad aad u faraxsan oo tiro badan ayaa joogay Puntland iyo gobolada kale ee kililka Soomaalidu degto ay kamid yihiin sawirada aad wadayban arkayo waxa aad soo jiitay dhir waaweyn baan ku arkay marka dhirtaasina waa jirtaa sax faarax waa runta magaalada Dudun waxa ay leedahay dhirtaan loo yaqaan marmariga ba aad ugu badan qofku markuu soo galo magaalada Dudun wuxuu dareemayaa naacaw qabow oo aad ku soo jiidanaysa qofku wuxuu isdhahayaa magaaladan يامن كتجيون أد بقول حسيسا كارهان كوحدي ETN كسرت بصاصة كتكتي أد بينوسو تشيد تمام تقول المجال مش خلصانين أهين كلام حسيسا لبا أن شعلنا كوديو لنا عسول وانت يوم مرتجلين تا دودن بالكوه دودن مهتم تايوري فرح مجال دودن إن سول وانت وحال أوران كراكوب كي وقعد ديسون كله وين مركا waxa isku yid meesha adugu dad aan ku qiyaasayo 6 kun oo qof hadaysan ka badnaynba waxay ka kala yimaadeen qaybaha kala gadisan ee Soomaalida reer Puntland baa ugu badnaa kililka shanaada Soomaalidu degto way ka yimaadeen waxaan oran karaa dad aad u fara badan baa meesha siibid dhamaantoodna aad bay u faraxsanaayeen dad loo tirmiyay qaabka dadku soo dhaweynta iyo iyadoo la sheegay dadka reer Dudun inay dabeecad u leeyihiin inay dadka soo dhaweeyaan ayaan halkaas kula kulanay qof kasto Dudun yimaada wuxuu dareemayaa farxad iyo soo dhaweyn aad u diiran sida anagu u dareemayo telefishin ka socda waxaan jeedinay dalxiis ka mid noqon doonto insha Allah waayahay daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkaas dheer oo telefishinka ETN uu ka qayb galay caleemasaarkii Amiir Maxamuud Yuusuf Ciise oo sida aad maqlayseen Cabdirashiid ni sheegay ka dhacay magaalada Dudun oo 8 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaalada Gaalkacyo waxaynu kooda بقولنا داوديال وعلى مساركي أمير محمود يوسف عيسى. دودن أو كدعها على مسارك أمير كعصب وحنا صقلنا ساعد ومركه هيد أفرت الصبح النمو وقرتي وح نغور بحنا هي حالة مقالة دودن عبد الشكري دودن وح كدعها على مسارك محمود يوسف عيسى قال لي على مسارك سووا كدعها بري أو تاريخه صدق يتبنك بيش سديدات أميركاس أو يكون عنا شبه السوء أما أي على مساركسا أي صوت ديارشين باش غير خلف أو كذا شيء أميركو باش غير خلف وشفوسات وعمر محمود شفا كم بدوية على مساركاس نروح دعية بريتو هذا واحد هالكا كوار كيسان قبتي أو للدياري هالكان وأقل صومالي أو كذا على عنا شبكو هالكاس واحد لو تلاقي هول كي شركة oo dadku isugu imaanayo lagu shiriyay halkaas bidixda ka muuqata waa kushinkii booyadaha iyo baabuurtaas iyo dadkaas tirada badan waa dadkii la soo agaasimay hadee ETN waxaan idin leenahay welcome to Dudun ku soo dhawaada ETN telefishinka ETN waxaan ku soo dhaweynaynaa Dudun waxaan leenahay marxaba Dudun walaalahayaatiin noo imaada nala arka نقل قبقاتا حفلة على مسارك أميركا ويلكم نذكر حاجة بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد عبد القادر الله فوله صحافته ومعتصنتهاي Dudun هدي بيقول كل من ساعدان وحن رجينا إن شاء الله
xafladda ka dhici doonta berri Dudun oo magaalo weyn ah oo xadka ku taala waanu ku talagalnay ilaa 4500 oo qof inay xafladda ka soo qayb gasho inay berri noo dhacayso insha Allah على مسارك أمير محمود يوسف عيسى قيل إن شاء الله والرير خلف بيش عمر محمود فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي لا
في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول goobta oo caleemasaarku ka dhacaya amiir maxamuud amiir yuusuf oo ah amiirka la caleemasaaraya amiir soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دمان waxaan salaamayaa marti sharafta halkan isugu timid waan salaamayaa nabdoonnada dowladda Puntland isimada boqorrada nabdoonnada dowladda dariska aan nahay intii ka socota odayaasha kale waxgaradka dumarka dhalinyarada dhammaan martisalka meeshaas ugu timid aad baan u salaaminaa media waa salaaminaa dhammaan dadka maarta arrintan organize gareeyey aad baan ugu mahadinaynaa waxaan leenahay idinkiis maartay tii khayra oo waxqabad iyo wanaag kuna bilaabata kuna dhammaata waa islaamiya mar labaad anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca beesha aan ka socdaba iyo martisharafta guud intaba magacayga maxamuud yuusuf ciise gella la yidhahdaa waa islaamiya mar labaad asalaamu calaykum الرحيم أنا نبضون عبد الشكر عبد الله حسين waxaan warbixin kooban idinka siinayaa aqalkan ay ku jirto odayaasha oo u soo diyaar garoobay caleemasaarka amiirka amiir maxamed yuusuf ciise amiir maxamuud yuusuf ciise qolkan aad arkaysaan oo aqal Soomaaliya ka dhisan oo aadka loo xardhay oo la sharaxay waa qolka loogu talagalay inuu ka dhaco caleemasaarka amiirka bacda caleemasaarkana amiirka wuxuu tagayaa howlka shirka oo ay ku sugayso ergooyinkii iyo bulshada ka soo qayb galay marti sharafka ahaa oo lagu marti qaaday caleemasaarka amiirka والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن daawadayaal haatan halkaan taagannahay waa guriga lagu caleema saarayo amiir maxamuud amiir yuusuf oo ah amiirka cusub ee haatan la caleema saarayo sidaad arkaysaanba kumaan qof ayaa iskugu timid halkaan oo ka kala yimid qaybaha Soomaaliya gaar ahaan dawlad goboleedka Puntland iyo kililka shanaad ee Soomaalidu ay degto caleema saarka amiir maxamuud amiir yuusuf waa mid aad iyo aad u heer sareeya kamana uusan dhicin taariikhda dhow deegaanadan ay ku nool yihiin dadka Soomaalida iyo qaybaha Itoobiya ee kililka shanaad Cabdirashiid Axmed Samantar telefishinka ETN Dudun بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حاجة